xidigaha kooxda Real Madrid iyo xulka Faransiiska Kylian Mbappé ayaa waxa la sheegayaa inuu dacwo ka geeyay kooxdiisii hore ee Paris Saint-Germain balse uu misna tuuray sida ay ku waramayso warbaahinta ugu afka dheer dalkaasi Faransiiska. Mbappé oo 26 jir ah ayaa si xor ah xagaagii tagay waxa uu ugu biiray xogweynta Real Madrid kadib markii uu qandaraaskiisa ku laystay kooxda reer Paris oo waliba xiriirkii kala dhaxeeyay uu aad u xumaaday fasal ciyaareedkii ugu dambeeyay taasoo xitaa keentay in taageerayaasha kooxdiisu ay ku fooriyaan kulankii ugu dambeeyay ee uu ku ciyaaray guriga Paris Saint-Germain ee Parc des Princes. sidan xaraar ay labada dhinac isula dhaqmeen ayaa sidoo kale waxaa dhinac socotay muran ku aadan gunooyin uu sheeganayay 26 jirkan oo markale isku dargaarayay ilaa 5 milyan oo euro oo isku jira mushahar aan la bixin gunooyin iyo barnaamijyooyin uu sheegay in uu kooxdiisii hore ku leeyahay sida uu ku doodayo. yeelkeeda horyaalada Ligue 1 ayaa iyana ku andacoonaya in qandaraaska Mbappé si sharci ah loo turxaan bixiyay dibna loogu dhisay kadib markii uu ka soo dhalaali waayay waajibkii isaga saarnaa xilligii uu sida bilaashka ah ugu biirayay kooxda Real Madrid si aanay kooxdiisu shilan uga dheefeen. arrinta ayaana tan iyo markaa jiitamaysay intaana kaga maharine Mbappé ayaa sidoo kale PSG waxa uu ka geeyay dacwad sharci ah oo ku saabsan in handadaad iyo bahdil loogu geystay kooxdaasi wixii ka dambeeyay xagaagii 2023 oo uu iska diiday in kooxda uu qandaraaska u dheereeyo. waxaana la xasuustaa in kooxda PSG oo aad u doonaysay in jokerkani uu sii joogo ama ay ugu yaraan waxoogaa shilmaad ka hesho iibintiisa ay xitaa ka reebtay istiyaarintii xil horaadyada ay ku kala bixinaysay dalalka dibadda iyadoona ku khasabtay inuu la tababarto ciyaaryahano kale oo kooxda laga rajiimiyey. ha yeeshee Mbappé oo aan habdhaqanka ku qanacsanayn ayaa aad u dhaliilay sida loola dhaqmay isagoo sheegay in gabi ahaanba laga go'doomiyey kooxda koowaad ee PSG lagu dhex tuuray ciyaaryahano reebreeb ah oo kubadda ka rajoobay sida uu sheegay. yeelkeeda warqaadka Faransiiska ah ee L'Equipe ayaa imika sheegaya in Mbappé uu gabi ahaanba dacwooyinka imika tuuray isagoona arrintaa u sababeeyay Mbappé oo doonaya inuu la heshiiyo kooxdiisa hore xilli waliba la sheegayo inuu soo hagaagayo xiriirka milkiilaha kooxda PSG ee Nasser Al Khalifi iyo laacibkan oo aad u xumaaday sanadii ugu dambeeyay ee uu kooxda ku sugnaa. waxa kale oo xusud mudan in go'aankan Mbappé uu ku soo beegmayo xilli markii ugu horeysay uu wajahayo kooxdiisii hore waayo Real Madrid ayaa waxay ku beegan tahay kooxda Paris Saint-Germain oo isku dhacayaan isdhamaadka koobka kooxaha adduunka oo ay kula faltami doonaan gegada caanka ah ee MetLife Stadium oo ku yaala magaalada East Rutherford ee gobolka New Jersey ee dalkaasi Mareykanka fiidnimada Arbacadan. iyadoo kooxda Faransiiska ah oo markii ugu horeysay dhadhamisay guusha Champions League fasal ciyaareedkii tagay ee 2024-25 ay doonayso inay qaado koob kale oo caalami ah marka ay isdhamaadka isku wajahaan camaaliqada reer Yurub ee Real Madrid tii koobka kooxaha adduunka la balaariyay oo waji cusub imika loo yeelay taasoo kordhisay qiimaha iyo qarashka laga helayo intaba. haddaba haddii aanu eegno safafka labada dhinac Real Madrid waa Courtois, Alexander Arnold, Asensio, Rudiger, Garcia, Valverde, Tchouameni, Güler, Bellingham, Garcia iyo Vinicius Junior. waxaa ka ganaaxan Huijsen waxaana ka dhaawacan Alaba, Endrick, Mendy iyo Camavinga. dhinaca Paris Saint-Germain waa Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Mendes, Neves, Vitinha, Fabian Ruiz, Doué, Dembele iyo Kvaratskhelia. waxaana ka ganaaxan Pacho iyo Hernandez oo roosooyin dafay kulankii ugu dambeeyay ay kaga badiyeen kooxda reer Bavaria ee Bayern Munich. Maxamed Xaaji, Hadal Same TV.